kusoo dhawow markiska Sheekh Maxamed Weli magacay wali aan xanuun Ibrahim marka hore waxaan ahaan xanuunsanay lugaha ma qaad karin jibooda xanuun jibay ku jiray jin badan bay ku jiray jin laba kuna jin uga saaray sixir baan ma tagay cagaa dhulka maan dhigay oo barsana cagaha waxa muusiinay daba ku taaganahay imaka ma sha Allah maalintii ugu horeysay miday waan yara xanuustay maalintii dambe ku soo noqday ayaga wada saaray ugu jira alxamdulillah waan fiicanay imaka تعالى wadaadka waxaan aniga oo xadigan oo xaafadayda waxaan deganahay calaamadaha waxaan aniga oo maxaan ku dhahay aad iyo aad xadigan oo meel walba ku dhacay ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala caafimaad sareecan oo caam ayuu ilaahay la siiyay caafimaadka caam ilaahay waxaan ka rajeynayaa subxaanahu wa khaaliq inaan martaba xanuunka ay soo celinin sheekha sharafta badan ee aan sharafta badan aad iyo aad u mahadsan yahay waan duceynayaa ilaahay waxaan qorayaa ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro ilaahay jannada uu ka waraabiyo anigana ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan ugu soo celino xanuunka marka kadib dhakhtarka adna ayaan tagay labada jeer waa laga helay dhakhtarka aan tagay wuu iga helay alxamdulillah sheekh baan la xiriiray 9 isho ayaa la igu akhriyay markaa kadib wuxuu yiri sheekhu bal iska soo shaybaar kadib waan iska soo shaybaaray positive ayay markaan negative alxamdulillah waxaan leeyahay umadeena walaal quraanka isku daweeya farada waxay yidhi ku taana fiidiyood taasoo maxay ahayd aan iska quraan saaray ugu daweeyna 10 iyo quraan wax kale nasiina ma jirto diinta ilaahay nala kaashay marka sacdawada yimi xanuunka macaanku leeyahay ilaahay uu iga caafiyay wixii xanuunsanaya dadka waxaan doonayaa inay ka soo shalay toole ilmaha xanuunsanaya waday waxaan ka imi xaafadda jigjiga haddaan ka imi ilmahan aad ila dhibaato habeenkii inta badan xanuusta ayaan la dhibaatoonayay muddo deedna sheekhan subaxii shalay u keenay quraan ugu aqriyay way dhacday in badan bay xanuunsanaysay in badan shalay toole in badan bay xanuunsatay marka xanuunsatay deedna quraankii waa la saaray waa laga saaray wixii way fiicnaatay iyadoo ladana cagaha ku soo kaxeeyay markaan kaxeeyay dabeedna maxaa yeelay gurigii baan geeyay horta meel waan kusoo sheegay dhaga sheekhu wuxuu igu yidhi ilmahan sixir baa haya haddii uu sixir hayana maxaa yeelay halkaas wax kaga dhagan yihiin ama aqalkayga kuma tagi ama kaage marka ma tagto insha Allah way caafimaad biidillah way caafimaad ma inantu way ma tagtay way caafimaad way fiican waxa ka soo daatay masaabiirtaas ka soo daatay halka waa laba waxa ka soo dhacay kala 5 musfaar oo ka horeeyay oo shalay toole guriga dhexdiisa toddoba musfaar baa soo dhacay kuwaas saarka markii aan keenay ayaa halka ka soo dhacay sheekh hortiisa anigoo qaadan loo dad kale soo kaxeeyay mana kaalay ilaa dadkii oo dhamilan leeyay waxaan ma aha maxay heleen masaabiiro ilmaha kuma soo dhicin way hor yaaleen ma meeshii yaaleen ma yoole ilmahan waxan way matagtay ilaahay baa ka soo celiyay saas ma soo tabayaan dhaliil waa shan musfa labada noo beddeliyay qofrada ilaahay ka soo saaray dhibaatada haysatay ayaan mahadnaqayaa oo mahadnaq markiska Sheekh Maxamed Weli